السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسن ددوينها أفريقيا الصومالية كوها الله نجلا الصعونية أفريقيا بري عربتا يدافعها كلا الدنيا. برنامج كان هو حلقة مع حقيقة الفنك. وبرنامج لما تانا برنامج كمضشة الأبور كي هي ساق برنامج كوم مجعبا. وبرنامجه sida aydin intiina daawata ma la kulantay adogtiin aan ku dabagallo oo ku gorfayno oo ku raad raacno oo baadigoob aan ugu gallo soo nooleynta heeladeeni iyo fankeeni iyo heeseeni oo aynu dadka wada xasuusino guud ahaan in aanay dabargoyn dadkii ehelka waha intii tumi jirtay iyo intii heesi jirtay marka ay dadku soo fadhiistaan marka ay ku dhuftaan wax la oran jiray aadka xusuusta oo bad u laha barnaamijkan xaqiiqada fanka wuxuu yahay barnaamij ay niman dhalinyaro ah ku muujinayaan kartidooda in wali ay karayaan oo ay awoodaan in iyada oo la isor fadhiyo ay tumaan qaar kamida walxii muusiga ee la tumi jiray ay rag kale ama dumar kale oo dhalinyaro ah iyagoo in hor fadhiya ay qaadaan iyaguna heesii la qaadi jiray waxaan xusuusnahay oo aan aad u xusaya dadkeena maanta wixii hees la qaaday intii ka horeysay sanadkii 2000 laga soo bilaabo waqtigii balwada dagaalkii labada adduunka dhamaadkiisa 45 ilaa 40 waxa jiray heeso waxay kala lahaayeen sawrac iyo tilmaan heeso waxa loo jiray heesii qaraamiga ah heeso waxa loo jiray heesii dhexe heeso waxa loo jiray heesii dambe laakiin maanta dhalinyarada iyo dad badan oo waaweyn waxay yaqaanaan oo ay heesihii la qaaday 80kii 90kii 85kii 70kii 75kii waxa qaraamiga oo yaqaanaan guud ahaan laakiin qaraami ma ahayn qaraamiga heesii khaaska loo yaqaanay jawhara luula ay kamid ahaayeen kaar iyo laac iyo suudaan iyo dankeli iyo isku shuban iyo xaafuun iyo kuwa aan kookow oran karaynin ay kamid ahaayeen ayaa qaraami loo oran heesaha kala magacyo lahaayeen maanta dadku qaraami bay u wada yaqaanaan balse aan qaraami u wada noqonin heesii dhaxa ayaynu dadka bari doonaa heesii iyaguna waqtiyadii sagaashamaadkii soo gaaray baynu dadka bari doonaa kuwa dambena waynu bari doonaa macnuhu ma aha in aynu dhaliilayno inaynu eedeynayno dadka waqtigan fanka u helka dhalinyarada iyaguna waayadan calanka u shida shamaca u sida calanka matana u sida kuwana waynu u mahad celinayna waynu u mahadnaqaynaa way mahadsan yihiin laakiin waxaan leenahay bal hada dar walba dhinacooda ha loo arko barnaamijkan xaqiiqada fanka ragga hore fakirkiisa iyo u lahaa soo bandhigiisa iyo soo horfariskiisaba walxaha music inoo tumi doona iyo ragga inoogu hees doona baadaan skin baro cali gacal guuleed waa nin fanaana cali waa nin aad u sanqaryar aan hadal badnayn oo afkaaban aan aad loo wada arag oo meelaha la isku yimaadeen meelaha ay lagu heesayay marmar isagoo yar xishoonayno heesa mooyaan intaan ka ogahay aan aad ugu badnayn nin fanaan cod wanaagsan soo gaaray waliba fanaaninteenii hore waa bari waxna kala soo qabtay oo soo shaqeeyay cali gacal guuleed waan soo dhaweynayaa waxa ragga walxaha inoo tumaya kamid ah Ibrahim Faarax Jaamac oo mawjada ku magac dheer waa macallin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Ibrahim taariikhda wuxuu ahaa raggii dhalinyaradii kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wax soo bartay qoraalka muusiga ee loo qoro la baray hargeysa caan ku ahaa wali isagoo macallin oo tamaashiirtiisii wato ardayda wax u dhiga haddana muu ilaawin fanki iyo hawshii fanaanintii danana qayb weyn ka soo qaatay Bishaar Salebaan nin dhalinyaro ah oo tuma isagu durbaanka aad iyo aadna matana bariyaha dambe u tuma Maxamed Miyir waxa uu kamid yahay ragga waqtigan iyaguna inoogu jira halkii odayaashii hore ee fanka ee kamanka tumi jiray la soo gaaray ay kamid ahaayeen isaga iyo Cabdinaasir Macalin Caydiid baa waxa weey waqtigan Hargeysa waxa ku jira ragga aad iyo aad looga jecel yahay wuxuu inoo tumi doonaa cuudka kamanka Mustafa Macalin Caydiid waxa uu kamid yahay dadka farakutiriska ee tumaya walxaa si dabar go'aya waxbaan islaha malaha Hargeysa laga heli maayo violin baa leeyahay ma dhaxyar intiina waan soo dhaweynaya waxaan mahadnaq gaara barnaamijkan ugu soo jeedinaynaa dhamaantayaba ninka lagu magacaabo Xasan aw Cali oo Xasan Sandheere ku magac dheer Xasan Sandheere waxa uu kamid yahay dadka ku nool caasimada Hargeysa ee fanka u helka jecel daawada ee dhageysta Xasan waxa noqday qofkii koowaad ee ka soo jawaaba codsiyadii xagga qalabka musiga iyo walxaha lagu tumayo barnaamijkan xaqiiqada fanka waxa uu ku soo deeqay fiis harmoniga oo ah walaxda codka macaan way walaxda codka wanaagsan ayuu ku soo deeqay oo yiri warnimayo hadii la hayo ragii tumi laha bahal baa guriga iska taale hadii la kurin yahay balada inay tunmayso yeen kale Xasan Sandheere iyo inta la olog ah baa waan aad baan ugu mahad celinayna
weli barnaamijku qalab kalena wuu u baahan yahay cid kastoo meelaha ku haysa inta ay sayaxa kaga fadhiisan lahayn waxaan leeyahay garoonka ugu soo deeqa dhammaantiiba kusoo dhawaada barnaamijka waxaan idin odhan doonaa dee noolaheena weliba mataqaana inta weliba labka lagu yaqaano haddii aanu min libaax ilaa maroodi ka soo qaadano ilaa atoorka ugu yar sakaarada way goolaftamaano way caraartamaano haddii alla ku roon yahay way yacnihii wuu caaranayaa baa la ydhahda geeskay rayska ama ciidda ama burka geliya aynu dadka maqashiino mid ka mid a heesaha la yaqaano muusigeeda oo aad muusigoo keliya tumaysaan hagaag gacmuhu idinma go-aan hees taariikhiya uurkaa kutabiya war niman yahow qudhayda rashiid buloona ku gaadhay waxaan ku sigtay aniga oo holanaya halkii laga geli jiray marka la qaadayo deetana waxaan siri bal yaan xumaantaada haddii aad hees tiraa bala waa mahadsantiin heestan uurkaa kutabiya la idhaha eebba ha u naxariisto dhowaan buu geeriyooday abwaankii hal abuuray wuxuu ahaa ciise warsame samatar alla u naxariisto dadkii qaadayena fanaanka weyn rashiid bulo oo isagu laxanka uu sameeyey codka iyo muusiga dadka dhisa ka mid ahaa wuu nool yahay oo weli shaqaalaha wasaaradda warfaafinta somaliland buu ka tirsan yahay allah u naxariisto gabadhii la qaadaysiina waxay ahayd farxiye cali way geeriyootay iyadana waxaanu leenahay allah u naxariisto waa heesihii muusigadooda iyo codkooda isa loo qaadayba aadka loo yaqaan waa hagaag aad baa mahadsantiin waxaan soo dhaweynayaa cali gacal guuleed fanaanka barnaamijka xaqiiqada fanka cali goormaa kuugu horreysay golayaasha fanka oo markii kuugu horreysay aad heestay halkeesa aad kaga soo birtay waxaa iigu horeysay 87 1987 way waana xamar teatri xamar maalinta ma heesihii hirgele baad ka qayb gashay maxaad qaaday waxaan qaaday hees la yiraahdo runta lagama boqo cali yaa heestaa yaa halabaro beriga xasan cabdi gooni nin la yiraahdo laxankana waa daa'uud cali masxaf way laxankuna daa'uud cali masxaf buu ahaa kaalinta misaad ku gashay marka kaalinta koowaad baad ku gashay waxaan xusuusnahay barnaamijkii inoogu dambeeyey maxamed cali burco buu ahaa halkii uu ka soo bilaabay oday ka soo kalluumaystay kaalinta koowaad fanaan aan soo marin oo sidan maanta aynu u tumeyno aan loo tumin oo tiyaatarkii aan iman idaacaddii toos looga sii deynin waaga ugu yaraa ma xusuusan tahay sidii aad u qaaday heestaa beriga iyadoo bilaa muusiga haddii aynu ku yar dhufan hadda cali codkiisa khallay aynu yar maqalno maxaa ka mid ahaa rays cali luxo xoluhu ramaas ay ka rugayaan miya laga raraa meelan roob lahayn ugaalo dhigaa aad baad umahadsantahay cali waxaan filaya sidii maalinta aad u heestay 87 maantana waad u heesaysaa cali gacal guuleedow sidii barnaamijkeenan ujeedadiisa iyo hadafkiisuba uu ahaa waxaan dadka ugu talagalay bal in heesaha qaraamigeed dadkii lixdamaadkii mid yar qabac aynu dadka uga siino oo dadka hibada u leh qaadi karaya aynu markaa soo marti qaadno xabad heesa aynu ku lafdhabar uga dhigi doonaa barnaamijka colka hareerahana waxaynu odhan doonaa bal hadda ku wada dhufta calina codkiisa wanaagsan aan nagu qaado
jirine waynu wax laga way jirine wanaag iyo xigsi yeelada wanaag iyo xigsi yeelada wanaag iyo xigsi wanaag iyo xigsi wanaag iyo xigsi yeelada علي جعل قولي عود كلا كبر كي أنت عن كحسوسناي هيستن رفتون إلا يرابن شعلهاي فيصل عمر مشتاق الله نحرس من تأد وقارك شري سقوا عود حبيب له هالكي عن ترجيل السومري ورشري أد يعني وقال شري سيف في عمبو إنه وقال واحد دنيا إن أي أسر رفنات كنا دعوني شملت بينو كوسين هيستي يوحي أتومي سين ربا تفاريق برها بلده إنه ولا عدو إبراهيم محطتي سياسي المصطفى مع العديد بشر خدمة قلومي هستنا إنه هذا قادم سامبه هو ما حصلتي نك إن دقات فيه بهذا نسوي يعني سنا إنه سنقدر فرس كأنه سمينين ما نقدم برفتون عليهم حد المكان عطها يخليهم حد أبيكم نتيجة وينو وحلاقة ما وجه هي وينو وحلاقة مويتيني wanaag iyo xigsi waxyeelada ilaahu war walba waxyeelada wanaag noo xigsi aad iyo aad baad ma santii dhabaantiiba waxyaabaha aan yani aad iyo aad ugu diirsado fan iyo sugan nool oo aad qofkii leedahay cali gaal gulad fankii saasad bariyaa ku bilowday goormaad shaqo xagga fanka gashay oo mushaar lagu qoray fanano أدو إن معلنا المركي وراءها هي سيدا سان ugu soo wareegay gelinta markii aan marka bacdi ayad macallimada ka soo wareegtay deetna fanki baad sidii ku sii gashay deetna ruwaadaha aad wax ka dhigtay ama xafiday maxaad ka xasuustay waxa kamid ah deena masiibo haye ruwaayadaas aan wax ka dhigay ayaad wax ka dhigtay markii koowaad ee la dhigay oo hargeysa ahayd hargeyseeda way
waxa igu maqaalaa cali gacal guuleed markii koowaad qofkii xafiday haba lagu riwaayada masiibada hal abuurkeeduna waa xasan xaaji cabdullaahi xasan gani cali waxaan arkay isaga oo qaadaya adduunyada walaalay adduunyada way badan fartiyo wadaan iska qabeysta dadkeenu aad ka u yaqaanaan maxamed carraali maxamed baa aad dadku ay u arkeen inta badan oo riwaayada soo bandhigay laakiin ragii wax ka dhigay xafiday buu cali gacal kamid ah cali waynu heestaa waynu qaadi karnaa soo ma waanu qaadi laxkii uu sameeyay horta markii uu xasan gani sameeyay waxa daawud cali masxaf baa ya luqda lagu qaaday heesta uu sameeyay ereyadana sangubo ereyadu adduunyada walaalay masugub mise xasan gani ereyadu waxa sangub haye laxankan wuxuu ahaa daawud masiibada marka riwaayada gebigeeda waxaan ku ogaa iyadoo xasan gani sameeyay laakiin xasan gani ayaa sameeyay laakiin heesta waxa iska lahaa waa taariikh cusub iyaduna aan ka wada markaa dhawaajino cali gacal guuleed oo adduunyoy walaalay qaadaya waa maasantii walaalkii ka dhiga sidii waqalku daa arbuu ku wanaajiya waqtigu ku hiliya walaalkii ka dhiga sidii waqalku daa إدابن لقو قسلا تتكنا تحي روح لوي إدابن لقو قسلا تتكنا تحي روح لوي بعد كلا ويعتاد ويكو عدوكم نغضا وتيقاد أدميقا فرتا مربو ودي وطلا إدابن لقو قسلا كانت تحي روح لوي إدابن لقو قسلا كانت تحي روح لوي بعد كلا ويعتاد ويبو عدوكم نغضا وتيقاد أدميقا فرتا مربو ودي وطلا adduunyoy walaalay adduunyoy way badan warware maadaa ku yiriyeen fartiyo wadnaha isu qabo fartiyo wadnaha isu qabo adduunyoy walaalay adduunyoy way badan warware maadaa ku yiriyeen fartiyo wadnaha isu qabo fartiyo wadnaha isu qabo way arag waxaan waanada ka maqal wadee ana darisu dhigin kiisana wadi aqoon
waanadiyo waaya arag waxaan waanada ka maqal wadeecana darisu dhigin halkiisana wadi aqoon adduunkana wasaciyo wayeer ceelan gure adduunkana wasaciyo wayeer ceelan guray lagu waaray qabay daxumo wagacay kumaan wareegay madiga weli admiga ku dila adduunkana wasaciyo wayeer ceelan guray adduunkana wasaciyo wayeer ceelan guray lagu waaray qabay daxumo wagacay kumaan wareegay madiga weli admiga ku dila adduunyoyi waalale adduunyoyi waayo badan warware maadaa ku yidhiye fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isqab fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isqaboye adduunyoyi waalale adduunyoyi waayo badan warware maadaa ku yidhiye fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha cali gaal guleed waxay ka mid tahay heestani heesaha waayaha ka hadla ee dadka aadka u taabta weliba weedhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn waa marbuu ku wanaajiyaa waqtiga koo heliyaha hees aad iyo aad u qiimo badan aad baan kaga mahad celinaya xusuustaada wanaagsan iyo sida ay kooxdeena muusigaduba u wada tumeen maxaad dareentaa markaad cali heesayso hees noocaas oo kale had walbaba dareenku heesto aad ay sidato waa inaad muujisaa marka waaye deetana waa in yani de qof waayuhu ku ciiray ay sideedu noqotaa cali su'aal baan ku weydiinaya waqtigan hadda la joogo kooxaha ka jira Somaliland koox ma ka tirsantay kooxda ciidanka booliska ka mid ahay booliska ka mid tahay waa kooxda goodir lagu magacaabo adigu miyaad heesaa waa tahay waan ogahay waana cod wanaagsan tahay wax miyaad walxaa miiska wax ka tuntaa laxanka ma samaysa midhaha marmar ma isu geysa ma horta mira shaqul kumali waay aalada la tumana waxaan ka tumaa kabankaas ka jira laxmada ku samayso waay codka lagu qaadaya saa samaysa waad isku dayda way cali gacal guleed hees kale oo aad leedahay oo ay xirteenana inala garanayaan aynu dadweynaha u qaadno tumaad inoo soo xulaysaa ha ku daayo moodku waa hees jacayl miya hees jacayl ereyadeeda waxaa tiriyeen inta Allah naxariisto la yiraahdo nuux warsame geedi abwaan weyn oo aad mataqana horeyna toddobaadka ugu soo maray Afrika ay hurudo yahay ninkii mataqana way laxka yaa samee daawud cali masax daawud saaxiib ah dalmanaya Allah Djibouti buu joogaa daawud markii ugu dambeysay waan salaamina ha ku daayo moodku way bal heestaasna ku dhifan doonaa iyadoo loo tumiyo muusigii codkii wanaagsan cali gacal ay raacdana
الروب مليمانين عيمولا سيدا ما ييغا كوغيو ميرا الروب مليمانين عيمولا maasantiin aad iyo aad ba maasantiin inagaaba wada muusanay muusigadii macaankii walahay dharankii cali gacal waa hees aad u wanaagsan wali adu gabadh ma leeyahay calo waa leeyahay way nuu xursme gadi baa heesta hal abuuray hees aad u wanaagsan way ahayd sida uu cali u qaadana waxay marxaad ka tahay cali fanaanimadiisa iyo sida hadii la ku rooyahay uu fanka ku ahaa waxaan iyana aad aan marnaba ilaawi karin oo in looga mahad celiyo iyo in lagu maamuuso iyo in lagu qiimeeyo ay tahay nimanka dhalinyarada muusiga tumaya inta ay tijaabo galaan iyo inta ay heesaha isha soo mariyaan waqti badan ay ku lumiyaan si ay u soo gaarsiiyaan dadweynaha barnaamijkan daawanaya wax dhadhamaya aad baan runtii idinku macalinaya cali gacal maxaa u dambeeyey heesad bariyaha qaado waxaa u dambeeyey way badan yihiin waa tahay mid aynu waay dadka haddana indhahooda iyo dhegahoodaba gaadhsiino insha allah haddaan ku huray naftaydii inaadii agarlaato maxaad u haleeli weyday haddaan ku huray naftaydii
inaadii agar laato maxaad u haleeli weyday ankiyo maankibaa ku raacay adiyo jeer ku hiloobay ankiyo maankibaa ku raacay unay hadiyo jeer ku hiloobay amiyo jacayliyo aday hor jooge ankiyo maankibaa ku raacay adiyo jeer ku hiloobay ankiyo maankibaa ku raacay unay hadiyo jeer ku hiloobay amiyo jacayliyo aday hor jooge haddaan ku horay naftaydii inaadii agar laato maxaad u haleeli weyday haddaan ku horay naftaydii inaadii agar laato maxaad u haleeli weyday haddaan ku horay naftaydii inaadii hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday haddaan ku horay naftaydii inaadii hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday halqabsiga jacaylkiyo waxaan ku haybiyaaba ibooye halqabsiga jacaylkiyo unay waxaan ku haybiyaaba nafku hilowda ku iraadinaysa ibooye halqabsiga jacaylkiyo waxaan ku haybiyaaba ibooy halqabsiga jacaylkiyo waxaan ku haybiyaaba nafku hilowda ku haybinaysa anoo ku hagarbaxaya haddii adii ili weyday okaydiyaan cidla u heesay anoo ku hagarbaxaya
abdiyadii hili weydo okey miyaan cidlaa u heesay haddan ku huray naftaydii inaad i hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday haddan ku huray naftaydii inaad i hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli يعني ما أوران كرو يعني هسكلي هيد وحب الله يعبي مثلا ميل يرو أتكتم يسين مثلا مهيبو يمرك وضي يقول هذا باب باب باب
يعني أنا يعني سيرت له ملتشي بسام الله قاعدة هستن مرة هذا يا هل أبوري علي قالوا runtii horta waxaan ka xafiday nin fanaan oo la yiraahdo Cabdullaahi Nuur Xaydar عبد الله نور حيدر waa nin musikiista oo fanaan oo tuma يعني أنت بقى ah واطي hal page iyo laxankeeda isagaan ka xafiday isaga markaa ayaa sidii fanku aan jiray mataqaana markaa aynu ku maamusayna ha page labaadna waxaa ii raaciyay Cabdi Heebel cabdi hebel lamad ku haga ayaa ku raaciyay cabdina waynu salaamina qurbaha ayaynu ku ognahay haddaan ku hore nafteeda maxaad ii haleeli weeday buuri inay gabadhu haleeli weeday wayna haleeshaabay hadii hibo inay saas samaysan maahayn waxaan ila tahay dhammaantiinba aniga oo si weyn idinku mahad celinaya in barnaamijka halka aynu ku dabaro oo barnaamijyo dambena insha Allah aynu isugu nimaadno barnaamijku xaqiiqada fanka ayuu ahaa fanaanka ugu weyn ee toddobaadkan wuxuu ahaa Cali Gacal Guuleed fanaanka Fiisa Armunigu wuxuu ahaa Ibrahim Farax Jamac Mujada waad qadwaan ogahay waa runtiis Ibrahim ka ku xiga waa in dadka tusaado heesay ballanqaad wanaagsan miyir iyo Musabca al-Hadidiyad Bishar Salaam buu ahaa محمد مير بوها أو إسنا عود كنوتمي مصطفى معلن عيديد أو إسنا فيلين تيجي حرت نوتمي لما أنت بنتي داونسي واتي أنا ولي بقى مهدلتي سنا كحولي نكال رضا حسن أو علي حسن صبير إسنا هديد سنة كوجد دوني في سرمون جاهد لما أنت بقى إياد بلدكم مدعلنية وقت كان وقتي بدن والله من إنه نبض يدكم نبض إن شاء الله ينسكم دونا إن شاء الله برنامج كنا رجع وهجر بحي عبد الضب وكم ده هي نشر بارك وكم ده هي إسنا محمد عقل هذه أو اسكتوا بريد دونا وكم ده هي إياد بني جانا وقام علينا وقت كده برنامج كسيان برنامج كان كل سيدي عادة إنه واحد وإحنا كنا بيحضرنا في المدة إني هذا الميوزك جاهد برنامج حقيقة فك والله ما تانا برنامج كمدش على بركة هسه وسقول له ولي بقى سمناه وهرتنا وقاضو أنت هاي نوتشوجو أنت كل بدون ما تبى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته